السلام عليكم غيرت مeel bajectin oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta wax walba oo ku saabsan suuqa kala iibsiga kooxda Arsenal ayaa contact la sameysay Ousmane Diamonde halka Tottenham iyo Chelsea ay ku dagaalamayaan weeraryahan u ciyaara Fulham City oo markaan dooratay goolahayaha AC Milan Liverpool iyo Man United oo ku dagaalamaya Inicios Arsenal oo iska iibinaysa Nketiah xilli Ivan Toney markan ku sii dhawaanayaan kooxda Isbaariska Casemiro oo dhanka ay Sacuudiga ku wajahan Juventus iyo kooxda Aston Villa oo heshiis isdhaafsiya haatan sameynaya hadii aan muuqaalka channel la garay kanaalkana subscribe noo sar hadii aan ku bilownano wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kooxaha reer England labada kooxood ee ugu waaweyn horyaalka Premier League Manchester United iyo Liverpool ayaa markaan si wadajir ah u wada doonaya laacibka lagu magacaabo Gonzalo Inicios kaasoo u ciyaara xulka Portugiiska iyo kooxda Sporting Lisbon laacibkan ayaa lagu qiimeeyaa lacag gaariga 70 milyan xilli kooxdiisu ay ku doonayso qiimaha inta leeg halka United iyo Liverpool iyo kooxo badan oo qaarada Yurub ka dhisan ninkan ay ku doonayaan qiimo inta ka hooseeya laakiin labada kooxood ayaa haatan dardar gelinaya sidii ninkan ku heli lahaayeen United oo iyadu doonaysa daafacyo dhowr ah xilli ay rabaan inay suuqa kala iibsiga haata furan inay soo qaataan daafacyo dhowr ah oo ka mid yahay Gonzalo Inicios lagu daray laacibka kooxda kubadda cagta Everton iyo Brentford iyo ciyaartoy kale halka Liverpool iyaduna ay u calaamaysan yihiin rag kale oo daafaca uga ciyaara kooxo badan oo qaarada Yurub waxayna rabaan labada dhinacba xil ciyaareedka soo socda inay iska soo adkeeyaan daafacooda maadaama seasonkan ay ku dhibaatoodeen dhanka dambe ee daafaca walow ay kala fiican yihiin oo kooxda Liverpool ay ka difaac adag tahay nimanka la yiraahdo Manchester laakiinse koox walba waxay doonaysaa in xil ciyaareedka dambe ee shub iska soo dhigto marka waan arki doonaa cid ku guuleysata Gonzalo Inicios dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Manchester City oo raadinaysa bedelka Anderson Marius ayaa markaan calaameysatay goolahayaha AC Milan xilli hore u xiiseynayeen goolahayaha wadda Birmingham ninka lagu magacaabo Michael Sarr marka Michael Sarr iyaga ayuu u calaamaysan yahay waxayna ku soo dareen liiska Michael Magan kaas uu ciyaaro kooxda kubadda cagta AC Milan goolahayahan ayaa ah mid cajiib oo fantastic ah garoonka San Siro si adag ugu ilaaliyo shabaqa xilli Milan ay ninkan ay rabaan inay qandaraas ku kordhiyaan kuna sii hayaan garoonka caanka ah San Siro kooxda kubadda cagta ee City oo bedelka Anderson doonaysa ayaa dagaal adag u galaysa sidii ninkan ku heli lahaayeen kuna keeni lahaayeen qalcadda caanka ah ee Etihad Stadium marka ninkan waa nin lugta ku ciyaaro dhulka kubadda ku haya sidoo kale tana Master Safa oo gacmihiisu ay yihiin gacmo adag oo kubaduhu si said ayuu u badbaadiyaa Michael Magan dhulkan waa ku ciyaara marka City goolahayaashii raadinaysa waxay ka raadinayaan nin dhulka ku ciyaar yaqaana safety-suna ay fiican tahay marka Michael Magan liiska Pep Guardiola ayuu markan ku soo biiray dhinaca kale kooxda kubadda cagta Isbaariska ayaa markan afduubanaysa ninka lagu magacaabo Ivan Toney oo ah weeraryahan ay wada baadi goobayaan Arsenal Chelsea United iyo kooxo kale oo Premier League markaan Isbaariska ayaa afduubanaysa oo waxay rabaan ninkan inay la hoolaan bedelka ninka xil ciyaareedka ku dhow ka maqan hal xil ciyaareed nadiif ka maqan Harry Kane ay rabaan inay bedel uga dhigaan maadaama xil ciyaareedkan Tottenham dhanka goolalinta lambarka 9 ay ku wareereen waxay rabaan ninkan inay soo qaataan sidoo kale kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa Chelsea la galaysa dagaal adag waxayna kula dagaalamayaan lambarka 9 ee kooxda kubadda cagta ee Fulham ninka lagu magacaabo Rodrigo Muniz oo xil ciyaareedkan haatan dhamaaday dhaliyay 9 gool ay rabaan inay soo qaataan Chelsea iyadoo lambar 9 way raadinayaan dagaal adag ay ugu jiraan laacibkan horyaalka Premier League ka ciyaara maaliyada Fulhamna xiran ee lagu magacaabo Michael Muniz marka labada dhinacba waxay ku dagaalamayaan ninkan Brazilianka ee la yiraahdo Muniz marka labada dhinacba tartan adag ay u gali doonaan laacibka kooxda kubadda cagta ee Fulham ee lagu magacaabo Rodrigo Muniz marka Tottenham iyagu Ivan Toney way doonayaan Rodrigo Muniz way doonayaan Chelsea ayaan isku wada hayaanba dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markaan war farxad la keenaysa dhanka Sporting Lisbon kooxda Sporting ayaa shaacis inay iibinayaan ninka lagu magacaabo Ousmane Diamonde markaan nimanku contact toosa ama xiriir toosa ay la yeesheen laacibka agency-giisa iyo kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon labadaba Arsenal fariintoos ay u direen kooxda waxay yiraahdeen qiimaha noo soo sheegay waa loo soo sheegay qiimihii waxa la yiraahdaa waa 70 diyaar ma idinka tahay ayaa la yiri Ganriska agency-ga iyo la xiriireen wakiilka ciyaaryahanka ay la xiriireen oo la fariisteen wakiilo u dirsadeen marka kooxda kubadda cagta Arsenal wararka haatan soo baxay waxay sheegayaan ninkan inay markan heshiisa gabagabeynayaan Ousmane Diamonde laakiin doon qalcadda caanka ee Emirates Stadium wax walba ka soo kordha heshiiska Arsenal ay la galayso Ousmane Diamonde iyo Sporting Lisbon
waan arki doonaa haddii aan muuqaalkeeshana loo laagaray kanaalkana subscribe noo saar dhinaca kaleeta kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa gacanta ku dhigaysa Douglas Luiz xilli ay weynayaan wiilka reer Mareykan qadka dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus ee lagu magacaabo McNeil xilli labada dhinac isdhaafsanayaan labadan ciyaaryahan ayaa la isdhaafsanaya oo Douglas Luiz wuxuu marayaa dhanka Juventus halka ninka la yiraahdo McNeil oo marayo dhanka iyo kooxda Aston Villa sheekaduna waa gabagaba haatan sidoo ku soo waramaya wariyahanka Fabrizio Romano labada dhinac heshiis ayaa dhex maray labada ninna waa la isdhaafsanayaaba marka ninka la yiraahdo Douglas Luiz Arsenal ayaa muddo dheer daba taagneed raadinaysay laakiin ugu dambeyn haatan dhanka Italy ayuu dhaqaaqayo garoonka Juventus ayuu xil ciyaareedka dambe ka soo muuqanaya waa sheekadu haddii confirm noqoto oo wax walbana la isku wada raaco marka labadan kooxoodba sida ay ku heshiinayaanba isdhaafsigaasna ayaa dhex maraya dhinaca kale kooxda Manchester United wiilkeeda Casemiro markan albaabada Sacuudiga ayuu karkaraacaya kooxo badan ayaa xiisanaya Ronaldo wuxuu rabaa Casemiro lagu daray ciyaaryahanka la yiraahdo David De Gea iyo ciyaartoy kaleba in la keeno garoonka caanka ah ee ku ciyaarto kooxda Al Nassr ninkan 30 milyan ayaa lagu qiimeeyaa waliba 35 milyan ay Manchester ku rabaan marka Casemiro dhanka iyo Sacuudiga ayuu u dhaqaaqaya haddii aan muuqaalkeena la garay kanka subscribe noo saar nagasti muuqaal kale ayaa xigi doona oo barto ah oo suuqa ku saabsan insha Allah goodbye